xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho. Ajandaha kulanka ayaa waxa uu ahaa akhrinta saddexaad xeerka xuquuqda siyaasiyiinta dowladda Soomaaliya, iyadoo intaa kadib ay xildhibaanadu meel mariyeen. Kulankan ayaa waxaa soo xaadiray 170 mudane oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo labadiisa gudoomiye ku xigeen. ku dhawaad 167 mudane ayaa ansixiyay, iyadoo laba xildhibaan oo ka midan ay ka aamuseen halka hal xildhibaan uu diiday. sharafta leh warbaahinta howlwadeennada oo idin salaamaya salaan kadib mudane gudoomiye sida uu sheegay gudoomiyuhu xeerka xuquuqda siyaasiyiinta dowladda wuxuu marayaa maanta waa akhrintiisii saddexaad. waxay ahayd 19 bishan maalinkii la qaybiyay oo aan ugu talagalnay inuu akhrintaa maro. si kastaba haatee maanta oo ay tahay 5 bisha 11 ayuu noo suuro galay. waxaan rabaa marka wax ka bedelka sidii ay goluhu u soo jeediyeen aanu samaynay inaan golaha u kormaro anoo og inay wax ka badan 3 usbuuc haysteen oo ay soo akhriyeen oo ay arkeen oo fahmeen. mudane gudoomiye mudanayaal, guddiga xeeroosaadka anshaxa xasaanada iyo golaha shacabka waxaa sharaf u ah inuu idinla wadaago wax ka bedelka lagu sameeyay mashruuca xuquuqda siyaasiyiinta dowladda. draftigii labaad magacu wuxuu ahaa liiltirka ama dhayman nololeed, marka laakiin halkan ayay ka bedeleen goluhu xubnihii taladan soo jeediyey. magacan xuquuqda siyaasiyiintuna waa magacii asalka ahaa ee uu lahaa xeerkii hore, xeer number 62 1981 dowladdii dhexe ay samaysay ee laga soo dhambalay xeerka. waanu qaadanay taladaas sideedaanu u qaadanay. xeerka oo soo maray akhrintii labaad haddana maraya akhrintii saddexaad. mudanayaal, waa ku talagalka guddiga xeeroosaadka in dhaqangalka sharcigaani ka qayb galo miisaaniyad sanadeedka 2019 si meel loogu yeelo xuquuq siyaasiyiin Soomaaliyeed oo qarankan u shaqeeyay xilli adag. guddigu wuxuu u mahadnaqayaa xubnaha golaha shacabka oo gacan ka geystay dhammaystirka qabyo qoraalka mashruucan oo si karti bisayl iyo waayo aragnimo leh waxna ugu daray waxna uga saaray. ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay in maanta si sax ah loo meelmariyay mashruuca xeerka xuquuqda siyaasiyiinta dowladda oo xildhibaanada kol hore ay aad uga soo doodeen. kooramka anaga maanta wuxuu ahaa 170. xeerkan waxaa ogol u codeeyay 167. waxaa diiday hal xildhibaan, waxaana ka aamusay 2. sidaa awgeed xeerkan sidaas ayuu sax ku yahay, waana ansaxsan. shirka annaga maanta intaasuu nooga xiran yahay. kulanka annaga aad iyo aad u mahadsantiin. Cabdikariin Shidane, warbaahinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland, magaalada Muqdisho.